Gegida Dayuuradaha ka hadaan magaalada Laascaanood ayaa dib u dhis ballaaran oo ay samaysay wasaaradda Duulimaado ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kadib haatan mid shaqaynaya isla markaana ay maalintii ka soo degaan laba falay oo ka dega maalin walba garoonkan oo ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee magaalada Laascaanood ayaa isagu mid la isku halayn karo sidii uu ballan qaaday wasiirkii hore wasaaradda Duulimaado haatan wasiirka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi xilligii uu furayay garoonkan isagoo u soo dhameystiray adeegyadii umadaarku lahaa sida gaariga damdamiska tiim u tababaran habka daminta dabka iyo waliba gaari nooca raaxada oo isticmaalaan shaqaalaha madaarka Laascaanood sidoo kale waxa ka socda terminal oo hadda ay gacanta ku hayaan dhismihiisii isduwaa wasaaradda Duulimaado ee gobolka Sool mudane Saciid Bilacawad saxardiid oo aanu kula kulanay garoonka dhexdiisa ayaa ka waramay shaqada uu garoonku hayo bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood isagoo baaq u diray qurbo joog ay u dhashay gobolka Sool sidii ay uga soo degi lahaayeen garoonkan haatan oo dhameystiran wax badan ayuu garoonka ka qabtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxqabad badan buu ka muujiyey wadarkasaan siduu ahaan jiray sidoo maanta ee differencega u dhexeeya gaabkaasna wasaaradda ayaa hawl badan ka gashay wasiirka cusubna waxaanu ka rajaynaynaa ismaan cabdilaahi saxadiin waxaanu ka rajaynaynaa sida wasiirkii hore oo kale isna inuu inta dhiman uu dhammaystiri doono waxaan rabaa in halkan uga faa'iidaysto shirkadaha private-ka iyo dadka passenger-ka ee deegaanka u dhashay labada waxaan leeyahay garoonka passenger-ka dadka passenger-ka waa inay isku dayaan sidii ay garoonkan uga soo deyi lahayn shirkadaha private-ka ee waddanka localka ka isticmaalana waxaan leenahay dadka passenger-ka soo qaada keena garoonku waa garoon wax facility oo dhan leh oo wax waliba yaaliin hadday tahay damdamiskii qaybtii damdamiska shidaalkii terminalkii dhinac walba immigration cid walba wasaaradii oo dhan ay ka shaqaynayaan shirkadda gaasta Dayuuradaha Starchat ayaa iyaduna mid mar walba heegan ku Gegida Dayuuradaha ee Galoyada Airport iyadoo gacanta ku haysa dhisida kaalinta shidaalka madaarka Laascaanood iyo haatan madaar u diyaar dejinta iyo waliba adeegga bulshada ee duulimaadada iyo waliba kaargooga kala duwan ee gobolka Sool waa Barkhad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland Laascaanood.